kulan waxaan wanaagsan daawaday halkan waa TV-ga gobolka Banaadir ee Banaadir TV waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka aan idin haynana waxa kamid ah musharaxa hogaamiyaha maamulka Galmudug oo boqolaal shacab ah kula hadlay deegaanka Gawaan ee gobolka Mudug halkaas uu ka jeediyay khudbad uu ku soo bandhigay aragtidiisa shaybaarka biyaha ee gobolka Banaadir oo lagu hubinayo tayada biyaha caasimadda oo dhawaan la bilaabi doono ciidanka danab oo burburiyay fariisimo ay khawaarijtu ku lahaayeen shabeellada hoose maamulka degmada Matabaan oo heshiis nabadeed dhex dhigay laba beelood oo colaadi ay dhex martay qodobada dibadda wararkeena aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa qayb ka ah Mareykanka oo dhowr dal markaasi ku soo rogay cunaqabatayn markaasi dhanka canshuuraha ah qodobadaasi waxay nagu soo kordhaa ayaynu daawada ku soo qaadan doonaa warkeena goor diyaar garow warkaas oo faahfaahsan waa hagaag daawada intaas waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu darkorona haatan waxaad ku soo dhawaataan warkaas oo fidsan oo idin akhriyo anigoo ah Cabdiqadar Maxamed Macalin Kalgacal musharaxa hogaamiyaha maamulka Galmudug ee xisbiga GSB Liibaan Axmed Xasan ayaa markaasi boqolaal shacab kula hadlay deegaanka lagu magacaabo Gawaan oo ka tirsan gobolka Mudug halkaasi oo uu ka jeediyay khudbad uu ku soo bandhigay aragtidiisa waxaan leenahay reer Gawaan waa mahadsantiin Gawaan waa meel iyo deegaan aad u qurux badan waa deegaan ka qayb qaatay la dagaalankii argagixisada taakuleenta iyo xoolaha iyo garab istaag muuqda laga muujiyey waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan isku soo laabanno adinkoo sidaan iyo si ka wanaagsanba ka sii qurux badan duwaa la yidhaahdo waxaan rabaa deegaanka Gawaan in aad hadduu alla yidhaahdo deegaano badan baan soo marnay wakhtigu waa gaaban yahay waxaan rabnaa horumarka iyo la dagaalanka argagixisada iyo nabadeynta iyo horumarka guud oo Galmudug ee xisbiga wadajirka iyo cadaaladda hadduu alla yidhaahdo hoggaan ku guulaysanno inaan adinkana wax idinka soo gaarsiinno horumarka Galmudug loo tiigsanayo hadduu alla yidhaahdo si horumarkaasoo dhan loo gaaro waxaan rabnaa ree Gawaan in shimbirta iyo 15 iyo xisbiga wadajirka iyo cadaaladda codka ma siinay codka waa siinay Soomaha hadduu alla yidhaahdo waxaan qiyaasayaa meel istaraatiiji ah ku taalaan oo degada Hobyo u muuqato waxaa ilaahay ka rajaynaynaa mararka ugu horeyso in magaalada Gawaan uu laami mari doono hadduu alla yidhaahdo dekedana la dhisi doono reer Gawaan waad ku mahadsantihiin wakhtigaa gaaban safarkaan ugu dheeraa mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahad celinaynaa sida diirana walaaltinimada iyo galgacalka le nagu soo dhowayseen aniga xisbigayga hadduu alla yidhaahdo guulaysanana si gaara idinkaga warqabaynaa waana mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shaybaarka biyaha ee gobolka Banaadir oo lagu hubin doono tayada biyaha caasimadda ayaa dhawaan la bilaabi doonaa agaasimaha waaxda biyaha ee isbeddelka cimilada ee gobolka Banaadir Mahad Baraawe ayaa sheegay in dhawaan si rasmi ah loo bilaabi doono adeega shaybaarka si loo baaro tayada biyaha lagu isticmaalayo magaalada Muqdisho runtii annaga shirkadaha private sectorska aadan u wada shaqeynaa shaqada waddanka iyo magaalada u hayaan waa uga mahad celinaynaa waa shaqo aad u wanaagsan runtii waana bogaadinaynaa taas markii laga yimaado annaga biyo sida inta ugu badan biyo banaanka laga keenay magaalada ma jiraan waa in yaro hal iyo laba oo shirkadood inta kale biyaha waa la soo saaraa ceelasha caadiga laga soo saaraa sidoo kale kuwa kalena oo biyaha munasaxada aad sheegtay wadanka lagu filtreeyaa magaalada lagu filtreeyaa warshaday leeyihiin baawur leeyihiin customer leeyihiin ay u adeegaan biyaha u geeyaan marka ayaga laftirkooda waxaan baaritaanada wax la baaray kaliya kuwa biyaha soo saara dadka ay u qaateen laga yaabo ma ahan kuwa biyaha warshadeeya laftirkooda oo biyaha caadiga ah caafi u bedelo oo macnaha oo shirkadaha warshadaha biyaha sifeeyo ayaan laftirkooda la baaraya oo ayaga hadda shaqadooda gacanta ku hayna malafkooda annaga ceelasha biyaha aan baarayna ceelasha hore kaliya ma ceelasha hore la baaraya kuwa hadda la qodaya la baaraya kuwa muxuu ah intaan la qodin koor ayaa survey la sameynaya horta meeshan ceelka laga qodayo ma ku haboon tahay ceelka hadii hay'ad naga caawinayso ee qodayso iyo hadii dad private qodayaan annaga si kasta maamul gobolka Banaadir
iyo xafiiska agaasinka waxaa mas'uul ka saaran tahay inaan hubino tayada badqabka biyaha ee camaan muwaadiniinta ku nool gobolka Banaadir taas marka laga yimaado waxaa jirta su'aashan oo ah in hadda meel aan suitable ku in biyaha laga qodo mararka qaar dad sameeyaa jiro waa ku raad joognaa runtii cawashadaasna waana soo gaartay waana ku daba jirnaa ilaa dhowr iyo 10 guriyana hadda aan ka warhaynaa in si hab qaldan oo sharci darro ah looga qodo ceelal oo muxuu ahay ceelashina underground lagu xiray ceelna uusan ahayn oo bulaacad laga dhigay marka arintaas ma aqbalayno maamul gobolka Banaadirna waa ku daba jiriyaa cid kastoo ku falayna waxaan ugu digaynaa inay farqaas ka waantoodo ciidanka danab ayaa burburiyay fariisimo ay khawaarijta ku lahaayeen gobolka Shabeellada Hoose ciidanka commandoska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal burburina ka fuliyay deegaanada Warboole Bishaar Doonweyne iyo sidoo kale Doon Yare oo ka wada dirsan gobolka Shabeellada Hoose howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa lagu bartilmaameedsaday fariisimo iyo goobo ay khawaarijtu u adeegsan jireen abaabulka iyo dhaqdhaqaaqooda gaar ahaan goobaha ay shacabka uga qaadi jireen baada iyo canshuurta sharci darrada intii uu socday howlgalkan ciidanka commandoska danab ayaa burburiyay fariisimihii iyo xarumihii khawaarijtu ay ku shaqeyn jireen taas oo qayb ka ah dadaalada lagu wiiqayo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab laguna xoojinayo amniga iyo xasiloonida deegaanada gobolka Shabeellada Hoose taliska guutada 16aad ee commandoska danab ayaa xaqiijiyay in howlgalada lagu xaqiijinayo amniga laguna wiiqayo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay sii socon doonaan iyadoona ciidamadu ay ka go'an tahay difaaca shacabka iyo sidoo kale ilaalinta qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya maamulka degmada Matabaan ayaa heshiis nabadeed dhex dhigay laba beelood oo walaalo ahaa maamulka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa ku guuleystay in heshiis nabadeed la dhex dhiga laba beelood oo colaad ay ku dhaxmareen deegaano hoos tagan degmadaasi shirka dib u heshiisiinta oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Oqaasha iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee labada beelood saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intii uu shirku socday ayaa dhinacyadu ay ka wada hadleen sidii loo soo afjari lahaa colaadda waxaana ugu dambeyn lagu heshiiyay in la kala qaato magta iyo magdhowga khasaaraha ka dhashay iska horimaadkii dhacay si loo xoojiyo nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada kadib saxiixa heshiiska odayaasha dhaqanka ee labada beelood ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona sheegay inay si buuxda ugu heshiiyeen qodobadii laga wada hadlay isla markaana ugu baaqay bulshada inay ilaaliyaan nabadda kana fogaadaan wax kasta oo dib u horin kara colaadda Ahmed Faarac Alasow nabadoonnada Agoon Cabdulla nin kamid waaye meeshaan waxaan iskugu nimid gogol nabadeed gogasha Agoon Cabdulla dhigay baa ilmo xasanna waa soo galeen laba beelood oo walaalaha diris oo dhib ka dhaxdhacay ayaa maanta iyo shalay iyo maanta u fadhiyay xalkii waa lagu kala xal qaatay waana lagu heshiiyey isugu nimid dhacdooyin dhacay oo hadda ka hor ahay rag magiisa lagu kala qaadanayay waxaan haynay Agoon Cabdulle iyo Bahayna Xasan waxaan ku kala qaadanay nin magiis waa lagu heshiiyey oo dawladuna marqaati ay ka ahayd waxaan isku siinay mag waxna ay dhima yihiin waxna aan ku kala qaadanay boqol halaadaan ugu heshiinay waxaan siinay walaalaheenna 38,000 15,000 oo lacaguna waa nagu dhiman tahay iyo 500 intaasaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa iyo diriska intii ka dhaxayda oo habeen jimcaha soo gashay ayaga Agoon waxaan ku heshiinay ku kala xoolo qaadanay lacag dhan 50 iyo 3,000 iyo 500 aan marxuumkii naga dhintay ku heshiinay wixii galabta ay nagu wareejeen waa qaadanay lacag 5 iyo 10,000 waa baaqi iyo 500 ayna noogu qabteen 2 bilood oo muddo annaguna waan aqbalnay aan ka sugaynaa wixii kale oo dhibahaayona kala gaaray iyo marxuumkii dhintay waa ka heshiinay Agoon gaar ahaan cigal la xaaji arintiisa laba bari aan u fadhinay waan wada hadalnay wada hadal dheer kadibna waan heshiinay waxaan ku heshiinay magtiisa iyo 100 halaad ah gogashii labada maalmood tiilay deegaanka qabno oo ka tirsan degmada Matabaan oo labada beelood oo walaalaha oo dariska ah oo Bahayna Xasan iyo Agoon Cabdulle la isku keenay dhacdo ka dhacday dhaxdooda oo dhimasho ahayd hal nin ah
oo arrintiisa meeshaas la iskugu yimiday labadii maalmood galabta ku soo gabagabowsay wanaag walaalnimo mag boqol halaad ah oo lagu heshiiyey oo ay heshiis ku yihiin ku kala qaateen galabta 15,500 oo raysta ay noqotay 38,000 ay qaateen nimankii Bahir Xasan galabta ay qaateen gobashaas wanaag ku soo dhamaatay walaalnimo ku soo dhamaatay sidii la rabay iyo wanaagii la rabay iyo walaalnimadii ku soo dhamaatay waa hagaag daawada qodobada dibadda ugu waaweyn ayaan markaas isla fiirinaynaa Mareykanka oo dhowr dal ku soo rogay canshuura cusub Mareykanka ayaa ku soo rogay canshuura cusub oo custom ah 60 kamid ah dalalka uu ganacsiga uu la wadaago taas oo talaabadii ugu dambeysay oo sii xoojinaysa dagaalka ganacsiga ee dib u horinaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii uu dib ugu soo laabtay xafiiskiisa sanadkii horeeto dalalka iyo ururada la beegsaday oo ku jiraan boqortooyada midowga UK Shiinaha iyo sidoo kale midowga Yurub waxay la kulmi doonaan canshuur u dhaxaysa 10% ilaa iyo 12% oo lagu suurtagelin doono dhammaan badeecadaha ay u dhoofayaan Mareykanka tani waxay saameyn doontaa ku dhawaad dhammaan badeecadaha oo Mareykanka dibadda markaas uu ka soo dejiyo si kastaba ahaatee khabiirka ganacsiga ee lagu magacaabo ee Mareykanka Kuryana ayaa sheegay in talaabadani aysan dhab ahaantii ku saabsanayn shaqada khasabka ah balse ay madaxweynaha Mareykanka uu raadinayo sabab sharciyadeed oo canshuurahan uu ku soo rogo horaantii sanadkan maxkamadda sare ee Mareykanka waxay xukuntay in qaar badan oo kamid ah canshuurihii caalamiga ahaa ee lagu soo rogay iyadoona la adeegsanayo awoodaha degdega ah si markaasi sharci darro ah oo loo melmariyay waa hagaag daawada guud ahaan warkii ayaan intaas ku ekeenaya warka waxa halkan iskala soo codsiinayay anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Macalin Kalgacal intaan ku kulmi doono warka xiga daawada waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo